waxaa maanta si rasmiya loo dhagax dhigay wadadii shanaad ee laamiya ee laga hirgeliyo magaalada Laascaanood taasi oo ay dhismaheeda bixinayso shirkadda isgaarsiinta ee Telesom oo kaashanaysa hay'adda DDG waxaana si rasmiya u dhagax dhigay mas'uuliyiinta shirkadda Telesom iyo sidoo kale duqa degmada Laascaanood ay weheliyeen mas'uuliyiin ka socday hay'adda DDG oo iyagu markaas iska kaashanaya qarashka wadadan ku baxaya مسؤولين مدرسة كهاد ليه كم هايين قدوميها شركة تلسوم قبل كسول عبد الساق أحمد ورسام الدبيعه يصير كلام مسؤولها هلا الشركة لسه يسوي وددن أي كور بحيي وددن يقاب كايودس بدونتو ساكو عنالك يسوقني مايركي يو حلبانة يو قامنا يو جدي تلوذاب يو دي سي شركة دي وددن لسه سي شركة كونستراكشن wado ayaanu dhagax dhigi doonaa insha Allah taala saaka oo maayarku dhagax dhigi doonaa anaguna goobjoogan ka ahaan doonaa wadadaas oo laba qaybood noqon doonta qayb ay Telesom bixin doonto iyo qayb ay bixin doonto DDG insha Allah taala hawshaan isugunayno hawsha ma noqon doonto wadadii ugu horeysay ee Telesom dhagax dhigto kuwa kale insha Allah taala waa dhagax dhigi doonaa Cabdirasaaq Maxamed Xasan Falaalug waxaan wakiil ka ahay shirkadda Shire Construction Company oo dhisaysa wadada tan qaybtan ugu horeysa halka kan oo ay maal gelinayso shirkadda Telesom cabirkeedu waxa weeye 350 mitir weeye sidoo kale maayarka degmada Laascaanood iyo xubin kamid ah hay'adda DDG oo madasha ka hadlay ayaa soo dhaweeyay horumarka ka socda magaalada Laascaanood waxaan maanta dhagax dhigaynaa wadadii Telesom ee ku deeqday kullu markaanu waxaan islaa 1 kilomitir wixii ay shirkadda soo bayno qabanaysa insha Allah waxaan ka waayeen waxaan leenahay shirkadaha kale ku daydeen sida sharafta leh shirkadaas ugu horseeday waa shirkadii ugu horeysay wax noo qabatay maanta inoo dhistay waxaan halkan ka arkayaa dahabshil iyo qoliyii kale oo iyana waxa la taagay diyaar garoobay wax dhigaya oo maanta halkan hawshooda ka socota wado 1 kilomitir ah oo ka soo bilaabmaysa Telesom agaarka Telesom horteeda ka soo bilaabmaysa wadada kale meesha ay kaga soo dhacdo soona gaaraysa ilaa iyo Bishacas wadadaas waxaan aad ugu rajaynahay inay wax badan dadka ay tari doonto xagga isu socodka ganacsiga bilicda magaalada intaba ay maxaaradaay ay wax badan ay ka gali doonto insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo dadku hadii ayna wax qabsanin qof in uu wax ku qabto horumar lagu ma gaadho marka hadaanuna gudiga horumarinta gobolka ama gudiga talawadaag kula shaqeynaya magaca mashruucan iminka ay bilaabeen Telesom iyo DDG ba waxaanu diyaar u nahay in aanu ganacsatada iyo qurba joogta iyo cid walba oo horumar jecel aanu u soo bandhigno in ay wax inoo bilaameen wadadan ayaa noqonaysa tii shanaad ee laamiya ee magaalada Laascaanood ay yeelato waxaana ay dadka ku dhaqan magaalada Laascaanood si aad u soo dhaweeyeen horumarka ballaaran ee ka soconaya guud ahaanba gobolka Sool Maxamed Ismaan Cabdunuur TV-ga caalamiga Universal Laascaanood